dhakhaatiir u dhashay Talyaaniga oo ka socday hay'ad samafal ah ayaa Muqdisho ka fuliyay qalliino lacag la'aan ah oo lagu sameeyay caruur iyaga oo faruuran dhashay. Qalliinkan waxaa qayb ahaan suura geliyay Cisbitaalka Aadan Cadde ee Muqdisho. waalidiinta ubadkan qalliinkooda lagu guuleystay ayaa muujiyay sida farxad ay u tahay inay arkaan caruurtooda oo bilicsan. guud ahaan caruurta qalliinka loo sameeyay ayaa gaaraya 40. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste. 40 caruur oo dhashay iyagoo faruuran ayaa qalliin lacag la'aan loogu sameeyay Cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. qalliinkan oo isugu jiray dhinaca faruurta iyo dhabxanaga ayaa waxa fulinayay dhakhaatiir Talyaani ah oo ka socday hay'ad samafal oo lagu magacaabo Emergency Service waxaana uu socday muddo 7 casho ah. caruurtan la qalay oo laga kala keenay meelo kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa siyaabo kala duwan u faruurnaa. marka faruurka liiguma ka ilaadna maxalka u dilaacsan yahay waxaas dhan way sameynayaan haday gabar tahay inoo garan karaysaa yani falxumada oo ilaahay wuxuu qadaray way runtii oo rixdiidi kara ma laha laakiin alxamdulillah wixii hadii ay dhacday in la farsameyn karo oo ay suurtagal tahay in la farsameeyo ilmihii la qurxiyo loo hadhowna uu fursad u helo si fiican u hadlo cunitaankii iyo cabitaankiina aysan dhibin ayaa ay suurtagelaysaa insha Allah taala. caruurtan ayaa inta aan la qalin waxa ay dhakhaatiirta Talyaaniga ah oo ay tiradoodu gaaraysay 7 xubnood waxa ay ku sameeyeen baaritaan guud si ay u kala hubiyaan kuwa ay qaliimadoodu adag yihiin iyo kuwa ay fudud yihiin. waxaana jiray xog waraysi lala yeelanayay waalidiinta ubadkooda qalliinka loo sameynayay. waalidiinta ka faa'iideysatay qalliinkan lacag la'aanta ay ubadkooda loo sameynayay ayaa markoodii hore qabay walwal ku aadan mustaqbalka caruurtooda iyo sida ay bulshada inteeda kale ula saanqaadi lahaayeen. waxaana hamigooda ugu weyn uu ahaa inay mar un dheehdaan caruurtooda oo si wanaagsan u hadlaysa bilicda bushimahooda iyo raashin qaadashadooduna ay aad u hagaagsan tahay. haddaba markii uu soo gabagaboobay qalliinkan waa kuwan qaar ka mid ah waalidiinta oo ka warbixinaya dareenkooda iyo farqiga u dhaxeeya caruurtooda ka hor inta aan la qalin iyo iminka oo la qalay. 9 bilood ay dhalan tahay way fiican tahay caafimaadkeeduna ma sha Allah way haddana ma sha Allah u jeedaa sidii shalay sida hadda inay hadda ka qurxoon tahay adigoo indhahooda ku aragtaa alxamdulillah ilaahay hadda noogu sii wadan ilaahay ay u fiicnay waana ay fiican tahay. waa tahay markii la qalay iyo hadda maxaa iska bedelay? ma sha Allah wax badan iska bedelay awal markii hore afkeedu way faydnaa ilkeedu banaanka yaaleen haddana u jeedaa quruxdeeda inay soo baxayso ilaahay ii sii caafiyana alxamdulillah waa nimcaysan tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Yunus Abshir Ahmed oo dhalay garaad Abshir Ahmed ayaa Cisbitaalka Aadan Cadde dawladda Talyaaniga iyo isbitaalka iyo shaqaalaheeda dhammaan waxaan ugu mahadnaqaynaa sida wax noogu qabteen annagoo dad iska reeb tabareeda ah oo ama 3,000 aanan haysan ama aan Hindiya aadi karin aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa dhammaan intii ka soo hawshan ka qayb qaadatay. wiilka intaan la qalin iyo hadda farqiga u dhaxeeya wax badan u dhaxeeya waxa weeye isagoo dhan waa faruurnaa haddana ma sha Allah dadkii iyo ardayda kulli la mid yahay awalna ciyaalku waxay dhigi jireen waa cayn jireen waa tuuriyan jireen waa dili jireen maantana dadkii buu ka mid yahay ma sha Allah 100% waxaan rajaynayaa hadalkiisii iyo quruxdiisii intaba inay soo laabatay iyo haybadiisii. dhinaca kale Dr. Fabio Benavoli oo ah madaxa dhakhaatiirta sameynaysa qalliinka ayaa iiga waramay tirada caruurta ay baareen iyo intay u suura gashay inay qalaan. questi giorni 40 pazienti bambini con waxaan baarnay 50 caruur waxaan saqalnay 40 caruur oo qalliinkoodu ahaa kuwa aad u adag oo noloshooda wax ka bedelaysa. safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo dhakhaatiirtan Talyaaniga ah la socday kana mid ah xubnihii ka soo shaqeeyay in dhakhaatiirtan ay hawshan qalliinka samafalka ka sameeyaan Muqdisho ayaa soo dhaweeyay qaabka ay wax u qabteen. waa arrin runtii aad u wanaagsan oo raad ku yeelanaysa noloshooda berito waad garan kartaan nin cilado noocaas ku dhashay oo Soomaaliduna maanta naanaysyo badan u bixi karaan maanta inay ka gudbeen loo sameeyay ilaa 40 ciyaal ayaa maanta hawshaas qalliinka loo sameeyay oo dad weynaha kala mid yihiin. waa arrin isbedel weyn ku abuuraysa noloshooda raad weyn ku yeelanaysa farxadna gelinaysa inta kale waalidiintooda iyo inta ehel u ah. dhakhaatiirta ayaa markii ay soo gabagabeeyeen hawshooda qalliinka
waxaa loo sameeyey xaflad sagootina oo lagu guddoonsiinayey qalab ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaana ay dib ugu laabteen dalka talyaaniga. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.